اوكي على مصد حد بجرته وحويان دنبيغا أيو كسارة يعني أدوس كاري يا بأرمها علد وأديغا sababtu waa adiga wix kasta xun xagaaga usoo tuuraya okay bariyan waa isbedeshay saadii hormatid hadda isaga isbedelay haddana adaa lagugu nabaya soo nabidaa kugu badanaysa ta afraad waxa weeyaan markaad qofkaaga kala maqan tihiin waqtigu kaa maqan yahay ama ha dheeraado waqtigu oo safar ha ku maqnaado ama maanta ha kaa maqnaado dee meeshu doona asxaabtiisiiyo okay qofku way fiican tahay walaalayaal in waqti la kala qaato aad bay u fiican tahay caafimaadka xiriirka iyo guurka u fiican tahay laakiin hadduu xasaasiyad ka qabo in aad ka wareysato ka waran maalintaadii safarkaagii maxaad qabatay halkaad ku haddaanu rabin inuu kaaga sheekeeyo waqtigu kaa maqnaa wuxuu ku qaatay wuxuu sameeyey wuxuu la kulmay khasab maaha yacni faahfaahin laakiin de qofku markuu ku jecel yahay wuu kula wadaaga adoo aan kaba codsanin buu kula wadaaga maalintoodii maanta waxay la kulmeen wax say ahayd okay why because waxa tahay de qofkoodii ay la qaybsadaan dareenkooda iyo culayska haya iyo wax kasta qofkii ay ku nafisayeen baa tahay qofkii ay xitaa maanta haday soo qaateen waqti fiican oo farxad leh qofkii farxadda la qaybsanayeen baa tahay anigu maanta haddaan faraxsanahay qofkii waa la wadaagaya waan faraxsanahay happy baan ahay adaa u sababa waa garateen okay marka walaalayaal hadduu qofku aanu rabinba inuu kula sheergareeyo wuxuu waqtiga ku qaato markuu kaa maqan yahay taas wallaahi ma fiicna يعني والجو كلا فوقانية شك بيكيني سامحو كمقنا أديكي بالجو أبوري شكي صوت اسمه فينا أوكي تقدم بيسه نمبر 5 وحويان هدي درين كاغو إلى درين كاغو حويان وحكو قياسة درين كاغو بهدي وكيراه ضد ضمير كاغو حوا خلدن حالة ما فينا درين كاغو هدو كوغالو أولو قليه دين وحباتشرا ها اوكي waxba jira way dadku marmar way ku gashadaan dareenkii iyo kaan suuqin bi ku gelinayaan in wax khaldan yihiin okay shantaas waa shan kooban maaha wax kasta laakiin waa shan kooban oo daruuri in loo fiirsado mid kamid ah hadaad aragto dawee saad u daweyn kala hadal qofkaaga la soo fadhiiso si caafimaad qabto uga la hadal okay daacad marka la isu yahay labada dhinacba walaalayaal waxa soo dhammi meesha maba yimaadaan maba soo galiyaan meesha waayo labada qof waxay ku mashquul yihiin farxadooda noloshooda ay dhisayaan inay isweheshanayaan